oo sidii sacfaraanka oo kale ah haddii aad aragto haweeneydan uur ay ku leedahay canugaas degdeg ah loo baaro waxaa dhici karto in uu magaranaysaa xiban dhiman in uu yahay ama dhegaha amaba magaranaysaa ama inuu hadli doonin amaba in magaranaysaa dhegaha uu la yahay amaba in magaranaysaa in un calaamad amaba si kale un yani magaranaysaa in uu yahay ayaa dhici karto magaranaysaa laa qadar allah mararka qaarkoodna way wanaagsanaataa باذن الله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. codsigeen walaalayaal waa in aad subscribe noo saartaan kabacdi gambaleelkana aad furataan kabacdi like-tana aad noo saartaan weliba noogu dadaashan like-ta kabacdi share-na aad dhahdo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله كسو دوادا شغريمي channel. waxaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan dal iyo dibad iyo da' kastoo aad jirtaan yar iyo weyn iyo qof kastoo aad tihiin rag iyo dumar allah subxaanahu wa tacaala waxaan idinkaga baryayaa cimri dheer oo cibaado leh adduunyo meelsan leh aakhiro janno leh inuu ilaahay ina wada siiyo dhammaanteena aamiin aamiin aamiin. la socda biidni illaahi alkariim ilaa iyo dhammaadka fiidiyowga. haddii aad nagu cusubtihiin fadlan subscribe noo saara like-tana noo saara gambayalkana furta. haddii asxaabta aan jecelnahay aad ka mid tahayna waxaan kaa codsanay in aad like-ta sidii roobka aad inooga yeesho biidni illaahi alkariim. ballanteena waa in aan hubino marka hore inuu gambayalka noo furan yahay. haddana waxaad ku soo dhowaataan qaybtii labaad barnaamijka aan ku ballansaneen ee riyooyinka. mararka qaar waxaa laga yaabaa isagoo naagtiisana uusan furin caadana uusan yacni ayadoo qabto caadana uusan u tagin isaga oona zanaysanin oo qof kale yacni qof kale gogol dhaaf uusan la samaynin ayaa ay dhici kartaa in uu dhiig uu kaadsho. haddaba maxay noqon kartaa markaas oo kale? waxay noqon kartaa haddii aad xanuunsaneed caafimaad ayaad magaranaysaa heli doontaa biidni illaahi alkariim. haddii adiga faqiir aad ahayd hodan ayaad noqon doontaa. haddii adiga hodan aad ahayd faqiir ayaad noqon doontaa. haddii awlaad la'aan ay ku haysay awlaad ayaad dhali doontaa biidni illaahi alkariim. inkastoo mufasiriinta qaar ay dhahaan canug xanuunsan ayaa magaranaysaa la dhalayaa inkastoo la dhahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam. haddii aad aragto adiga oo kaadshaya wax jaallo ah hadday guduudu ahay ama dhiig haddana wax jaallo ah adiga oo kaadshaya oo sidii sacfaraanka oo kale ah haddii aad aragto adigoo kaadshaya haweeneydan uur ay ku leedahay canugaas degdeg ah loo baaro waxaa dhici karto in uu magaranaysaa xiban dhiman in uu yahay ama dhegaha amaba magaranaysaa ama inuu hadli doonin amaba in magaranaysaa dhegaha uu la yahay amaba in magaranaysaa in un calaamad amaba si kale un yani magaranaysaa in uu yahay ayaa dhici karto magaranaysaa laa qadar allah mararka qaarkoodna way wanaagsanaataa biidni illaahi alkariim. ilaahay khayr ha ka dhigo. haddii qofka uu arko isaga oo ku kaadshaya ciid amaba dhoobo isagoo ku kaadshaya haddii magaranaysaa uu qofka is arko rag iyo dumar waxay rabaan ha ahaadaano haddii uu qofkaas uu is arko isagoo ku dhex kaadshayo dhiiqo ama magaranaysaa dhooqo ama magaranaysaa ciid qofkaasi qof weysada hagaajiya ma aha. dib isku baar. qofka weysada boobsiya amaba magaranaysaa canqowyada yacni qalalan dhaqaajiyo ayay magaranaysaa ay u ogtahay amaba maba weyse qaatabo ama weysada ma laazimo haddii uu weysaystana weysada ma hagaajiyo. haddaba waxaa dhici karto in aad ku riyooto adigoo ku kaadshaya deb dushiisa. debka dad ku kaadinaysid aad is aragto rag ahaw ama dumar ahaw waxaad yacni magaranaysaa ku bishaaraysanaysaa in aad dhali doontid wiil magaranaysaa hogaamiye ah haliyey ah geesi ah aad iyo aadna u kulul ayaad magaranaysaa dhali doontaa biidni illaahi alkariim.
maanta intaas ayaa ilaahay i waafajiyey waxaan haleeyay nafi shaydaan bay ka ahaadeen waxaan hagaajiyay ajar Allah naga siiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.